cashirkan waxaan ku baranaynaa sida la iskugu dhufto exponentska ama multiplying exponents. marka ugu horeysa waa inaad ogaatid exponentiga waa lambarka kore oo dusha ka saaran lambar weyn oo hoose. hadda sida 4 square oo kale 4 square lambarka kore oo lambar 2ga ah ama lambar 2da ah waxaa la yiraahdaa exponent. lambarka hoose oo weyn sida lambar 4 waxaa la yiraahdaa base. markaad isku dhufanaysid laba lambar oo exponentska markaad isku dhufanaysid waxaa la suubiyaa waa in ay labada lambar ee hoose ay islahaadaan ama laba lambar oo isku mid ahaadaan. sida hadda lambar 8 oo leh exponent 3 leh haddana waxaad ku dhufataa lambar 8 oo leh exponent 4. marka hadda labadan lambar waxaan isku dhufanaynaa labadan lambar oo exponentiga leh. marka waxaa la suubiyaa waxaa weeye marka ugu horeysa waxaa la fiiriyaa in labada lambar ee hoose ay isku mid yihiin. hadda labada lambar ee hoose waa isku mid, waa lambar 8 iyo lambar 8. marka waxaa la suubiyaa markaad isku dhufanaysid exponentka waxaa la suubiyaa waa la isku daraa. sida lambarka hoose ayaa hal laga soo qaataa waxaa la suubiyaa marka 3 lagu daray haddana 4. 3 ku dar 4 3 ku dar 4 waa 7. marka jawaabteenu wuxuu noqday lambar 8 oo leh exponent 7 ah. saas ayaa marka jawaabteena 8 oo leh exponent 3 lagu dhuftay 8 oo leh exponent 4 jawaabtu ama natiijadiisu waxaa weeye 8 oo leh exponent 7. tusaale kale subinaynaa. tusaale kale a oo leh exponent 5 baad waxaad ku dhufanaysaa a calaamadaas oo dhibicda ah oo weyn oo lambarada dhexdooda ku jirta waxaa laga wadaa calaamadii ku dhufashada ahayd oo sidaas oo kale ahayd. marka taa la soco. waxaan ku dhufanaynaa a oo leh exponent 6. marka ugu horeysa intaan isku dhufanin waa inaad fiirisaa in labada lambar oo hoose ay isku mid yihiin. hadda labada lambar oo hoose waa lambar a iyo lambar a waa laba lambar oo isku mid ah. marka waxaad subinaysaa markaad isku dhufanaysid exponentiga la iskuma dhufto ee waa la isku daraa markuu tahay exponent isku dhufasho ah. marka waxaad subinaysaa 5 baad waxaad ku daraysaa 6 wuxuu la mid yahay exponentiga la isku daraa 5 ku dar 6 waa 11. marka jawaabteenu wuxuu noqday 11 oo waxaan ka wadaa a oo leh 11 exponent. marka hata a with exponent of 5 times a with exponent of 6 waxay la mid tahay a with exponent of 11. tusaale kale ayaan subinaynaa. tusaale kale labada lambar hoose la iskuma dhufto midkood ayaa la soo qaataa taasna la soco. waxaan subinaynaa 5 oo leh exponent 2 lagu dhuftay haddana 5 oo leh exponent 4 lagu sii dhuftay 5 oo leh exponent 10. marka waxaa la suubiyaa lambarkii hoose ayaa laga soo qaataa hal xabo sababtoo ah lambarada hoose oo dhan waa isku mid, waa lambar 5 marka lambar 5 baa hal mar laga soo qaataa markaas baa exponentiyaasha la isku daraa. marka exponentigii koowaad wuxuu ahaa lambar 2 waxaad ku dartaa exponentigii kaloo ahaa lambar 4 waxaad ku sii dartaa exponentigii kaloo ahaa lambar 10 wuxuu la mid yahay haddana 5tii ayaad qoranaysaa oo lambarkii hoose ahaa markaasaa exponentiga isku daraysaa. 2 ku dar 4 waa 6 ku sii dar 10 waa 16. 2 lagu daray 4 waa 6 ku sii dar 10 waa 16. marka jawaabteenu wuxuu noqday 5 oo leh exponent 16. marka 5 square
5 square lagu dhuftay 5 oo leh exponent 4 lagu sii dhuftay 10 oo leh exponent 10 jawaabteedu waxa weeye waa 5 oo leh exponent 16 tusaalahan waa tirtiraynaa waxaan subinaynaa tusaalooyin kale hadda waxaan subinaynaa tusaalahan x square lagu dhuftay x oo leh exponent 8 waa maxay waxaad subinaysaa x baad qoranaysaa markaasaa labada exponent isku daraysaa laba lagu daray 8 haddana waxaad qoranaysaa xt exponentiga ayaa isku daraysaa laba ku dar 8 laba lagu daray 8 waa 10 marka jawaabteenu wuxuu noqday x oo leh exponent 10 marka hadda x lagu dhuftay x maxay la mid tahay x ku dhufa x waa x square sababtoo ah x waxay leedahay exponent 1 ayuu leeyahay marka hal ku daro waa 2 marka wuxuu noqday x square haddii aad aragtid lambar gooni u taagan oo sidaas oo kale ah taa micnaheedu waxa weeye lambarkaas letterkan ka wada letter ama lambar walbaba wuxuu leeyahay exponent hal ah ayuu leeyahay sida lambar 8 oo kale aragtay lambar 8 waa maxay exponentigiisa waa hal marka lambar walba oo gooni u taagan hadaa aragtid ama xaraf gooni u taagan oo aan exponent lahayn taa micnaheedu waxa weeye xarafkaas ama letterkaas wuxuu leeyahay exponent oo ah hal sida b oo kale b muxuu leeyahay b waxay la mid tahay b oo leh exponent 1 marka hadda laba b baad dhigatay waxaad ku dhufatay b kalaad ku dhufatay marka b lagu dhuftay wuxuu noqonayaa b square wuxuu noqonayaa waxaan ka wadaa b square b oo leh exponent 2 sababtoo ah b walba hal uu leeyahay kana hal buu leeyahay marka hal ku dar labada exponent markaas ku dartid wuxuu la macno yahay waa sidaan oo kale hal lagu daray hal haddana wuxuu noqonayaa b square ayuu noqonayaa marka waa sida waan tirtiraynaa tusaalahan waxaan subinaynaa tusaale kale hadda waxaan subinaynaa tusaalahan 9 oo leh exponent 5 lagu dhuftay 9 lagu sii dhuftay 9 oo leh exponent 2 marka ugu horeysa waxaad subinaysaa 9kii baa qoranaysaa haddana exponentyaasha ayaad isku daraysaa lambarka koowaad lambar 9 wuxuu lahaa exponent 5 waxaad ku sii daraysaa hadda lambarkan lambar 9 dhexda ku jira exponent ma lahan laakiin wuxuu leeyahay exponent hal ayuu leeyahay haddii aad aragtid lambar aan lahayn exponent aysan ka muuqan taa micnaheedu waxa weeye lambarkaas wuxuu leeyahay exponent oo hal ah marka 9ka wuxuu leeyahay oo exponentkiisa muuqan hal exponent ayuu leeyahay oo qarsoon marka haddana waxaad kusii daraysaa 2 ayaad kusii daraysaa hadda waan isku darayna exponentyaasha marka ugu horeysa lambarkii 9 ayaan qoranaynaa 5 ku dar hal waa 6 ku sii dar 2 waa 8 marka wuxuu noqday 9 oo leh exponent 8 waxaan subinaynaa hadda a oo leh exponent 4 iyo b oo leh exponent 3 baan waxaan ku dhufanaynaa haddana a oo leh exponent 5 haddana waxaan kusii dhufanaynaa b oo leh exponent 2 marka waxaad subinaysaa eeda iyo eeda ayaa isku daraysa exponentyadooda sababtoo ah a iyo a waa laba xaraf oo isku mid ah b iyo b na exponentigooda isku daraysa sababtoo ah b iyo b waa laba xaraf oo isku mid ah marka waxaad subinaysaa a baad qoranaysaa haddana eeda exponentigiisa muxuu ahaa lambar 4 u ahaa eeda koowaad haddana eeda labaadna exponentigiisa muxuu ahaa lambar 5 markaad isku daraysaa haddana waxaad qoranaysaa b da exponentyaashooda ayaa isku daraysa haddana
bda koowaad exponentigiisa wuxuu ahaa lambar 3 haddana lagu daray bda labaad exponentigiisa muxuu ahaa lambar 2 u ahaa marka waad qoranaysaa haddana waxay la mid tahay a marka da exponentigiisa waa 4 iyo 5 4 iyo 5 isku dar waa 9 marka da waxay noqonaysaa waxay yeelanaysaa exponent oo 9 ah bdana exponentiyadooda isku dar 3 lagu daray 2 3 ku dar 2 waa 5 marka bna exponentigiisa wuxuu yeelanayaa 5 marka wuxuu noqday a oo leh exponent 9 haddana b oo leh exponent 5 tusaalahan hadda waxaan qoranaynaa m ayaan qoranaynaa lagu dhuftay m muxuu la macno yahay m lagu dhuftay m mmkan lambar mkan ma lahan exponent muuqda ma lahan laakiin waan ognahay in uu haddii uusan xaraf ama lambar uusan lahayn exponent muuqda taa micnaheedu waxa weeye lambarkaas ama xarafkaas wuxuu leeyahay exponent oo hal ah ama exponent of 1 ayuu leeyahay marka mtan maadaama aysan haysan exponent muuqda taa micnaheedu waxa weeye mid walba wuxuu leeyahay lambar hal oo exponent ah marka mkan wuxuu leeyahay hal kanna hal buu leeyahay marka exponentiyadooda ayaan isku daraynaa m baan marka hore qoranaynaa haddana hal ku dar hal lagu daray hal waa 2 marka m times m lagu dhuftay m wuxuu noqday m square ama m oo leh exponent oo 2 ah waan tirtiraynaa waxaan subinaynaa tusaale kale hadda waxaan subinaynaa x lagu dhuftay x lagu sii dhuftay x maxay la macno tahay waxay la macno tahay waa x hadda exponent muuqda ma lahan kuwaan x-yada laakiin maadaama aysan lahayn exponent muuqda taa micnaheedu waxa weeye mid walba wuxuu leeyahay exponent oo hal ah marka hal lagu sii daray hal lagu sii daray hal waa saas oo kale marka hal ku dar waa 2 ku sii dar hal waa 3 marka jawaabtu waxay noqotay x wadata exponent 3 hadda maxaa la dhihi jiray a lagu dhuftay a lagu sii dhuftay a lagu sii dhuftay a lagu sii dhuftay a wuxuu la mid yahay a hal lagu daray hal lagu daray hal lagu daray hal ameeqa e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 lagu sii daray hal marka isku dar hal waxaan ka wadaa hal ku dar hal waa 2 ku sii dar hal ku sii dar 5 halood baan isku darnay 5 lambar hal marka wuxuu noqday a with exponent of 5 ama a oo leh exponent 5 x ku dhufo x waa x square sababtoo ah exponent 1 ayuu leeyahay kana exponent 1 ayuu leeyahay cashirkan meeshaas ayuu ku dhammaaday